السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي الحمد لله شكر رب العالمين. وإن سلامي أمد الصوماليات دي أمد إسلام كردن وحان الله يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو فاضم برامبر واحد سوغي سنبريهان كليبيا aan maxay ahayto YouTube ku aragtan inaan iniga jawaabo laakiin waxaan inii wada war qeyr leh oo wanaagsan maanta waa jimco hore ayaan inigu sheegay jimco kasta qaas ayay ii tahay xasuus ayay ii tahay qeyrkuna insha Allah maalin ayuu fatahmaya rabbiga subhanahu qadirka iridiisa ayaan ka warsugaynaa Allah ayaa wax awoodo annagu waxaan un awoodnaa oo kaliya ducada iyo aamiinta umada islaamko alxamdulillah الشكر لله الملك الله ما أنت وان قوليستي وحانكو قوليستي هذا القروح بدن أو أركو ضد قروح بدن أو يقرب استاغو ومدى الصوماليات أول عسنيد أيام وحان ربا إنان أشيغو بيان كان أن ما أنت جمعاء أصو دوبي ولي ما نعدي لسوقرين دون إن شاء الله فاضما وحان عرقنا كليب عرورة هذا صوت دوبين فاضما أناقا كو عاورين أناقا كو تاغن ما شاء الله تبارك الله ومدى الصوماليات هيل يهوبا way ila taagnaayeen waligoodna way ila taagnaa haddana way ila taageen waana iniga abaal hayaa inta itari doonto iyo inta itartaba ducada muhiima deeqlaysi waxa ka wanaagsan kelmadda Allah la isku xuso iyo kelmadda Allah la isku duceeyo sidaan horeba inigu sheegay ma sha Allah waxaan haystaa alxamdulillah lawyer fiican ilaahay ha garab galay iyagoo dhan gaar iyo muslim iskugu jiro waxa kale oo hadana haystaa maxay ahayto dad Soomaaliyeed oo aqoon ku leh wadankan oo sharciga yaqaano oo shuruucda yaqaano wadanka ma sha Allah sidoo kale mahadi ha ka gaarto Sheikh Hussein iyo Cabdirashiid oo annaga noo matalo barta Soomaalida ay ku leedahay baarlamaanka awoodooda hadii caruur la qaato iyo hadii aad dareento wax yar oo isbagta daraa ama respect aadan ku arag waxa noo jooga dad Soomaaliyeed oo aqoon leh sidoo kale wiil kale oo asagana siyaasi Allah iiday cimrigiisa cimri waaraba waxaan leeyahay habaryar waa mahadsantahay asna maxamed nuur la iima kala harin gabar kale oo journalista la iima kala harin Soomaalida intii magac iyo muuq leh oo aqoonta leh ee xirfad leh caruurtayda way u kacday kilibkeygana waan arkay meel badan oo la galgaliyay waxaan isleeyahay wanaag ayay u galiyeen waxaan u maleynayaa in aad qaar ila raadinaysiin qasaaraadan ila raadinaynin waa faraxsanahay awalan waxaan ku faraxsanahay maanta jimca ilmahayga la iiga soo waramay aqbaar qurux badan ayaa caruurteeda liiga keenay inay nabad qabeen ayaa la ii sheegay walow video-na aan arago walaaci geliyay oo aad rabteen inaan muddooyinkan ka soo jawaabo sida aan arkay video-ga waxa aad aragteen caruurtii walaacsan ku shanta kala warka mahin labaan aragnay ma sha Allah laakiin waxaan filayaa inay iyaguna nabad qabaan ugu horeen gabadhayda curada cimri waaro oo wacan hooyo meel kasto adduunyada ku joogto waan ku jecelahay ilaahay baa i ka siiyay mar kastana anigu baa hooyadaaya mar kasta aan ku sugaay insha Allah waxa diinta islaamka ku fartaad hooyo aan wadaagi doona inaad i duugto ayaan insha Allah ka sugaaya sidoo kale wiilkayga Salmaana cimri waaro wacan hooyo ilaahay il nacab iyo il galgacayl baa ka fogeeyo afkaada quruxda badan ee ummadoo dhan ka ooysiyay iyo xikmadda xiskaada ka soo baxday hooyo caafimaad ku war ayaan ku leeyahay meel kasto joogto anun baa hooyadaaya waan ka warsugaaya wiilkayga curadkaayo kii aan koosha idhigi lahaa tahay kii qabriga dhulka idhigi lahaa tahay waa ku sugaaya insha Allah saacaday noqotaba sidoo kale waxaan rabaa inaan gabadhayda si hamluul ee aanan arkin ee aanan maqlin hooyo waxaan ku leeyahay inaad wacan tahay oo wanaagsan tahay baan Allah subhanahu qadirka kaaga baryayaa oo aad caafimaad qabto waxaan mar kastana jecelahay inaan noloshaada arko oo aan gacanteeda aad igu hayso oo hooyo halka Ilaahay ku faray aad adigu igu fariingeyso inaad xajki igeysan Ilaahay ka baryayaa insha Allah ma tiid cunug xun mana tihid mana ugu horeysid cunug qaldamay ama cunug hadal ka fakaday oo Soomaaliyeed gabadhayda tahay mar kastana aniga hooyadaaya ana ku sugaay insha Allah sidoo kale wiilkayga Salim waxaan leeyahay hooyo kuma ilaaba moodka ha ku ilaabe kuma ilaabo noloshaydii baa tahay wiilkan ku tashanaya tahay cimri waarahaygii baa tahay ilaahay cimri dheer iyo cibaado suuban hay ka siiyo waxaan ku leeyahay maanta jimcaha hawada ku soo marinaya salaam baa xal caruurteeda dhan ba maanta wada hambalyadan iyo farxadan insha Allah
sidoo kale Axmed Baashi wiilkayga waxaan leeyahay waxaa tahay wadnihii gaara ee ilaahay uu iga beeray oo ilaahay ila dhaliyay adiguna cimri waaro wacan insha Allah waa isku imaan doona markasta anuun baa hilibkaaya anuun baa hooyadaay ani baa isku dambeyn doona insha Allah sidoo kale Sudaysi Sultan Sudaysi salaamaad min kulli aafad hooyo macaan waxaan ku leeyahay nolol wacan oo waarta duca ayaan had iyo jeer inii sida meel kastoo tagtaan ammaano ayaad ilaahay u tihiin Allah in xafido ilaahay ha inagu xafido meel kastoo joogtaan sagal kuuso ay shacabku yaqaanaan kuuso waxaan leeyahay gurigaad ku barbaartay halkaad ku kortay ku kowacday rabbi mar kale dib waa kugu soo celin karaa insha Allah waana ka warsugeynaa caruurtoo dhan waxaan kaloo rabaa inaan Soomaalida u sheego waa mahadsantihiin waa la i caawiyay laakiinse waxaan la iga caawinin oo aan wali aan laga caajisayn waxay tahay ducadiina 12 maxkamadda ducada insha Allah eray waxa jira la yiri mudaharaad ma jiro barbaleenkaas oo dhan ma jirto anu Soomaalida waxaan uga baahanaa duco wanaagsan dadkii aqoonta lahaana waa helay ducadiina ayaan rabaa insha Allah wax walba inay noogu hirgalaan caruurtaydana u duceeya anigana ii duceeya xaajigeena in duceeya caafimaad dhimirkiya dhaayaha galayaan iniga tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh